Ma ogtahay in Nigeria ay tahay dalka leh dhaqaalaha ugu weyn Afrika, ama in fanka dalkan uu gaaray caalamka oo dhan? Maanta, waxaan kuu keenay xogo la yaab leh oo ku saabsan dalkan saameynta ballaaran ku leh galbeedka Afrika. Fadlan, haddii aad ku cusub tahay kanaalkeena, waxaan kaa codsanaynaa inaad ku hubsato subscribe-ta, sidoo kalena aad saarto like muuqaalkan. Mahadsanid. Ku soo dhawaada mowduuceena maanta. Nigeria waa dal cajiib ah oo hodan ku ah taariikh, dhaqamo kala duwan, iyo awood dhaqaale oo weyn. Xogta guud ee Nigeria waxay dhacdaa galbeedka Afrika, iyadoo daris la ah wadamada sida Benin, Niger, Chad, iyo Cameroon. Baaxadda dalkan waa 923,769 kiilomitir square, waana dalka 32aad ee ugu dhulka weyn adduunka, iyo kan 14aad ee ugu weyn Afrika. Dalkan waa dalka ugu dadka badan Afrika, iyadoo tirada dadka dalkan lagu qiyaaso 230 milyan oo qof sanadkan 2025. Caasimadda dalkan waa Abuja, balse magaalada ugu weyn dalka waa Lagos, taas oo ah xarunta dhaqaalaha, fanka, iyo ganacsiga, isla markaana leh tikid weyn iyo garoon caalami ah. Lagos waxay ahayd caasimaddii hore ee Nigeria, waxaana looga guuray sababo la xiriira inay noqotay mid ciriiri ah ama mid dad badan ku nool yihiin. Sanadkii 1991 ayaa laga qaaday caasimad ahaanshaha loona wareejiyay Abuja. Lagos waa magaalo ka dhaqaale weyn dalal badan oo ka mid ah qaaradda Afrika. Haddii dal ahaan loo aqoonsan lahaa, waxay ka mid noqon lahayd 10ka dal ee ugu dhaqaalaha weyn qaaradda Afrika. Quruxda dabiiciga ah ee dalkan. Nigeria waa dal hodan ku ah ilaha dabiiciga ah sida webiyada waaweyn iyo kaymaha. Waxaa mara webiga Niger oo ah webiga saddexaad ee ugu dheer Afrika, iyo webiga Benue, kuwaasoo ku kulma bartamaha dalka Nigeria, gaar ahaan magaalada Lokoja. Waxaa sidoo kale laga helaa kaymo qurux badan sida Cross River National Park iyo Yankari Game Reserve, halkaas oo laga helo duurjoog ay ka mid yihiin maroodiga, daanyeero, iyo xayawaano kale oo Afrika laga yaqaan. Taariikhda Nigeria. Magaca dalkan ee Nigeria waxaa la bilaabay adeegsigiisa xilligii gumaysiga Ingiriiska, waxaana la wariyaa in magacaasi ay bixisay xaaska madaxii u qaabilsanaa Ingiriiska dalka Nigeria, Flora Show, iyadoo ka soo qaadatay webiga Niger. Wuxuuna dalkan xornimadiisa ka qaatay gumaystaha Ingiriiska 1 Oktoobar 1960. Dalkan wuxuu soo maray taariikh muran badan dhalisay, sida goosashada Biafra. Bishii May 30keeda 1967, Lieutenant Colonel Odomugu Ojukwu ayaa ku dhawaaqay in gobolka koonfur bari ee dalka uu noqonayo Jamhuuriyadda Biafra oo ah dal madax bannaan. Dowladda dhexe ee Nigeria oo uu hogaaminayay Generaal Yakubu Gowon taasi way diiday. Qowmiyadda Igbo ama Ibo oo degan koonfur bari Nigeria waxay sheegatay in lagu dulmiyo siyaasadda, dhaqaalaha, iyo dhanka ciidankaba. Taasi waxay sababtay in saraakiishii ka soo jeeday qowmiyaddaas ay ku dhawaaqaan goosasho. Kadibna waxaa qarxay dagaal muddo 6 maalin kadib ku dhawaaqista Jamhuuriyadda Biafra. Dagaalkan waxay dowladda dhexe u aqoonsatay dagaalkii sokeeye ee Nigeria, halka dadka qaarkii ay u yaqaanaan dagaalkii Biafra. Dagaalkii sokeeye ee Biafra wuxuu socday 2 sano iyo 7 bilood, laga bilaabo 6 Juun 1967 ilaa 15 Janaayo 1970. Dagaalkan wuxuu sababay dhimasho iyo waxyeelo kale oo soo gaartay dadka rayidka ah. Ku dhawaad dad lagu qiyaaso milyan ilaa 2 milyan ayaa ku waxyeeloobay dagaalkaas. Taariikhda Nigeria waxaa ka mid ah kala guur siyaasadeed iyo dowlado militari ah. Nigeria waxay leedahay taariikh siyaasadeed oo adag. In ka badan 6 afgembi oo militari ayaa ka dhacay dalka. Muddo 30 sano ah ayay militarigu hayeen talada dalkaas, laakiin laga soo bilaabo 1999 ilaa iyo maanta, dalkan wuxuu haystaa nidaamka dimuqraadiyadda ama nidaamka xukunka rayidka ah. Waxaa sidoo kale Nigeria ka soo jeeda madaxweynayaal caan ah sida Olusegun Obasanjo iyo Muhammadu Buhari. Dhaqaalaha iyo kheyraadka dabiiciga ah ee dalkan.
Nigeria waa dalka ugu dhaqaalaha weyn Afrika. Wax soo saarka dalkan sanadkii waxaa lagu qiyaasaa ku dhawaad 510 bilyan oo dollar, iyadoo inta badani uu ku tiirsan yahay shidaalka. Dhaqaalaha Nigeria ma ahan mid xooggan oo u xasilan sida Koonfur Afrika, sabab la xiriira siyaasad xumida dhanka dhaqaalaha. Dhaqaalaha dalkan wuxuu si weyn ugu tiirsan yahay shidaalka iyo gaaska dabiiciga ah, iyadoo ay Nigeria ay xubin ka tahay ururada sida Ururka Dalalka Dhoofinta Shidaalka OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries, iyo Ururka Dalalka Dhoofiya Gaaska Dabiiciga ah Gas Exporting Countries Forum. Sidoo kale, dhaqaalaha dalkani wuxuu ku tiirsan yahay beeraha. Waxay beertaan kakawga, bariiska, galleyda, lowska iyo kuwo kaloo badan. Waxaa lagu qiyaasaa in ka badan 70% dadka reer Nigeria inay si toos ah ama si dadban ugu tiirsan yihiin beeraha si ay noloshooda u dabaraan. Dhaqaalaha dalkan wuxuu sidoo kale ku tiirsan yahay wax soo saarka warshadaha. Wuxuu leeyahay warshado wax soo saar oo kobcaya, kuwaas oo si weyn uga qayb qaata shaqo abuurka, horumarka ganacsiga iyo dhoofinta badeecadaha. Warshadaha cuntada iyo cabitaanka ayaa ka mid ah wax soo saarka dalkan. Sidoo kale, waxaa ka mid ah warshadaha shamiitada iyo qalabka dhismaha. Mid ka mid ah shirkadaha shamiitada ee ugu caansan Afrika ayaa laga leeyahay dalka Nigeria, waana Dangote Cement oo uu leeyahay qofka ugu taajirsan qaaradda Afrika ee Aliko Dangote, kaasi oo hantidiisa lagu qiyaaso in ka badan 20 bilyan oo dollar. Tiknoolajiyadda iyo ganacsiga Nigeria waxay sidoo kale ku tiirsan tahay ganacsiga iyo tiknoolajiyadda. Waa mid ka mid ah dalalka Afrika ee sida xawliga ah ugu socda horumarka tiknoolajiyadda casriga ah, gaar ahaan dhinacyada e-commerce-ga ama ganacsiga online-ka, fintech, tiknoolajiyadda maaliyadeed, iyo digital innovation, wax curinta dijitaalka ah. Nigeria waxaa lagu naanaysaa Silicon Valley-ga Afrika, the Silicon Valley of Africa, iyadoo sababtu tahay tirada badan ee shirkadaha tiknoolajiyadda ee cusub, startups companies. Xawaaraha ay ku fidayaan adeegyada online-ka ah ayaa ka mid ah sababaha loogu yeero Silicon Valley of Africa. Kartida dhalinyarada reer Nigeria ee wax curinaya. Nigeria waa dal xubin ka ah ECOWAS, midowga dhaqaalaha wadamada galbeedka Afrika, iyo sidoo kale suuqa xorta ah ee qaaradda Afrika, African Continental Free Trade Area, waana meelo muhiim u ah suuqyada Afrika. Diimaha iyo qowmiyadaha Nigeria waxaa ku nool dad kala duwan, iyadoo qowmiyadaha ugu waaweyn yihiin Hausa Fulani oo degta waqooyiga dalka, Yoruba oo degta galbeedka dalka, Igbo oo degta koonfur bari dalka. Diimaha ugu badani waa diinta Islaamka oo 50% bulshada dalkaas ay ku dhaqmaan. Diinta Islaamka ayaa ku baahsan waqooyiga dalka, halka Kirishtaanka bulshada haysata ay yihiin 40% ayna ku baahsan yihiin koonfurta iyo bartamaha dalka. Fanka, dhaqanka iyo ciyaaraha Nigeria waa hoyga fanka casriga ah ee Afrika. Waxaa laga helaa hal abuur gaar ah oo loo aqoonsaday heer caalami, sida Afrobeats. Muusikada Afrobeats waa nooc casri ah oo isku dhafaya dhaqanka Afrikaanka, hip-hopka iyo dansiga. Super Eagles oo ah xulka kubadda cagta ee Nigeria waa mid ka mid ah kuwa ugu caansan uguna awoodda badan Afrika. Waxay ku guuleysteen koobka qaramada Afrika AFCON tiro 3 jeer ah. Waxay si joogto ah uga qayb galaan koobka adduunka FIFA World Cup. Waxaa u dhashay Nigeria ciyaartoy caan ah sida JJ Okocha, Victor Osimhen, John Obi Mikel iyo Ahmed Musa. Nigeria waa dal leh awood dhaqaale, taariikh qani ah, dad tiro badan iyo dhaqan soo jiidasho leh. Waxay tusaale u tahay sida Afrika ay u leedahay karti iyo kheyraad